dhammaan waxaan u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan quruxda badan ee caawa aad isugu timaadeen waana barnaamij warbaahinta dalsoor ee caawa ugu talagashay wuxuu ku saabsan yahay amaba uu ka hadli doonaa dhanka dhaqanka iyo hidaha Soomaalida wax badan ayaan rajaynayaa in aan ka wada faa'iidno dhammaanteena maadaama aan u badannahay dhalinyaro waan ka mid ahay waxaan rajaynayaa caawa anagoo aqoon badan iyo faa'iidooyin badan xambaarsan inaan halkaan ka tegi doono haddii Allaha wadalaha uu ogolaado marka wax yar oo kooban haddii ay idinkaga sheego dalsoor warbaahin madax bannaan waaye oo shakhsiyaad Soomaaliya ay asaaseen warbaahinada ganacsigan ka mid ah oo dhaqaale doon ma aha waxaa loogu talagalay bulshada in lagu adeego waxyaabaha qiimka dadka u ah muhiimadda ay Soomaalidu siiyaan ayay ka hadashaa sida midnimada Soomaaliya ayay dhiirigelisaa waxayna maxaa samaysaa waxyaabo badan oo maxaa lahayn midnimada laga shaqeeyo dadka ku wacyigelinayo sidoo kale dadku inay isku filnaansho gaaraan oo Soomaalida ay iskood maxaa lahaa dad wax qabsan karo adduunka muuqda u noqdaan ay ka shaqeysaa dhaqanka suugaanta iyo Soomaaliga oo dabcan caawa waxa halkan isugu jooga u wada joogno qayb ka ah ayaa dalsoor waxyaabaha ka mid ah martida inoo joogta waliba aan ku bilaabi doono ayaa waxaa ka mid ah Cabdisalaan Axmed Yuusuf wuxuu ka mid yahay ama waa aqoonyahan ku xeeldheer Soomaaliga saameynta ay yeelan karto amaba dhibaatada ka dhalan karto marka la qaldo dhigaalka iyo dhawaaqa Soomaaliga iyo wax badan inooga sharaxi doonaa waxaan jeclaan lahaa si diiran inaad igula soo dhaweysaan wuxuun baan rabaa inaan idhaaho haddii la haydo dagaalka afka Soomaaliga hadda waxay hortaagan mandar kasta oo aad eegtid saddex sadar hadduu ka kooban yahay oo meel ku yaalla af Soomaaliya damage dhaawacyaa ku yaalla qoraalkiisa dhawaaqna waa uu ka sii darnaanaya waxyaabaha aadka u la yaabka badan ee qoladan media ama siyaasiyiinta ayaa ugu badan kuwa af Soomaaliga aan isleeyahay malaha way hadda waa beertooda u gaarka iyaga waxaad arkaysaa waxyaabaha in aad u isticmaalo waxaa ka mid ah innaga gaadiidka dhowrka noocyo badan oo ka mid ah xoolaheena ka kooban ari iyo ishkinba kuwa ishkinka ah gaadiidna way loo isticmaalaa intooda badan manaafiicdooda kalena waynu adeegsanaa haddaba maxamed wuxuu inoo soo gudbin doonaa amaba aan siinayaa mid ka mid ah naasooyinkiisii ugu dambeeyey uu beryahan amaba waayadan dambe uu sameynayo inuu nala wadaago mid ka mid ah balsena waxaa roon ka helay midkii raatibay waqtiga ribada ka fogaaday ee ridoobina mu'mine rukuucda ku raage ee rabbigii raalliyad galshee haddii kale waxaan lahaa ramaas wacankii dariyo midkaan rubahaysan iyo rafiiqkii lala noqdiyo ra'iiskii loogu waco xag rabbi way siman yihiin balsena waxaa roon ka helay midkii raatibay waqtiga ribada ka fogaaday ee ridoobina mu'mine rukuucda ku raage ee rabbigii raalliyad galshee racdii kale waxaan lahaa mid ka mid ah qaybaha sanadka ama nusuuska loo qaybiyo marka afar loo dhigo ka mid yahay wuxuu u dhaxeeyaa diraacda iyo xagaaga diraacda waa taqaanaa soo maaha jiilaalka iyo wuxuu u dhaxeeyaa xagaaga waana xilli roobaad ama xilli roob uu diro waxaa la rabaa marka qof idin ka mid ah oo sheega xilligaas bilow ku aadan yahay April, May, June. Saddexdaa ayuu haddaba waraan ku siiyo guurku ma ahan gobolka daba gur la dhisto waa nin aad la noolaatid oo wanaagsan oo farxad geliya oo baari ah oo wanaagsan oo diin ay ka muuqato marka muhiim ma ahan inaa guri waxaas ku fakarto guri maxaa waa guri baa ku aroosaa mise nin baa ku aroosahay nin baa guri kula galaaya naacaad iska dhig أنا مركز من مساعدة أرى منك على نقاط ويا أربع كوري جنا I love you سمعت مرة سويت البيسة وأنا باي 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 حتى نبقى فقير كوسة براد
من تفوق علي أنا وحنا كان يحرق إذا حكى حكي شيء كبده حرق تونا حكي الشغل خير يسيا ما قاعد يقع ما ترى هذا كودي ما أنا وحنا يقول طون يقول طون لما كان يكون في الإسلام معي يسوع وكاتب صار مدعي لكن أسكرني فيني ممكن تيجي هذا نوشة وجهنا وأنا كم قطع الله تجيب هذا صحيح وحكوها يا أنا هرينا بورك دلما براد شروطها وطا ده شروط أوكي شغالة حتى قراءة عمود المكينة شروط الكلية يعتبر يسمى كبرنا أما ما تسمى قوة شروطه وأول ما كنت نقاش يبغى حوض إنك سأكبر بورك دلما يدير كريم محبرنا ما يحكسوا كل جد معاه قليلة شيء بس لما هني أنا وطن صاحبه ميرك كانوا بلاوري لما بقول كل أصلا يلا ترى صورة عليه حوالها فهم بس كذا جسيمنا كذا كله وحاربها إن عروسك لما تنبي وصعود فرماته قيدة شرماك بلاينا كذا ولا أنا حتى هلا ما كسرين وعلى مرتقال أنا عادي أنا وريا قاعد فرالي دي كذا فكلا سمعت وحد يجيب لي سلسلة تحكيله أو السنة أو بحال وضطر أتاك سكسو بحكي حتى ومرضي دي كتاب رانا دي كذا أنا كنت أنا فتكبر يجلس مو حلو يروى ما يركجوا أنا تسيا بكتبوا يا الله أنا أنا كبر في عنو ونكسل دخل كانوا برا الصومال لا خيسة هذا ما فهمت إيه هذا كودي دخل كانوا برا الصومال لا خيسة دخلوا معهم بينو لا خيس بعدين يلقوا بورسة جري كين يو أري يو وحلا كبر لقى بحين جري فرس يو قري يو ما حيتون هسوسا خيرها يسوون مسلم قاعد قري يا كنت الروتين حتى قري الحنا أعوذ بالله وهذا تجارب وقبالة نوضع بلا نوضع قاعد aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijka Soomaali Soor waxyaabo badan aan ka faa'iiday aniga qaasatan af Soomaaliga waxyaabo badan oo iga dhinna ayaan ka faa'iiday waan soo dhaweynayaa aad aan ugu faraxsanahay anigu weligay waxaan ka daawan jiray TV-ga social media laakiin waxaan ahaa dadka ay ku casuumeen caawa barnaamijka haddana ani oo live u dhex jooga maadaama ay bulshada shaqo fiican ay u hayaan midaas waan ugu mahadcelinayaa dhammaan baahda Balsoor ka soo qaybgalayaasha waxaan ugu faa'iidnay waxyaabo fara badan oo ku jira dhaqanka Soomaaliyeed Yo,